Assalaamu calaykum, waan idin wada salaam. Maanta natiijo, himilo iyo hididiilo ayaan idinka warramay. Natiijo, himilo iyo hididiilo. Ugu horreyn, natiijo waa wax aad helaysid marka aad feshid fal. Himilana waa natiijo aad damacsan tahay oo aad filaysid inaad heshid. Hididiilo waa rumaysnaan aad rumaysan tahay inaad hubaal u hanan doontid himiladaada. Haddii aan u dhigo si kale, waa dareen ku dhalanaya maankaaga oo dhabkaaga dhaadhicinaya in aad ka salgaari doontid himilada aad damacsan tahay. Deetana macno kuugu sii sameynaya dadaalka aad ku tiigsanaysid himilada aad rabtid inaad hanatid. Haddaba, 8 walax baa kooba hididiilo. Haddii la waayo mid ka mid ah 8 walax, ma jirto hididiilo. Ugu horreyn, waxa aad tiigsanaysid ee kugu abuuraya hididiilo waa in aad leedahay. Taas awgeed, walaxda koobaad ee kugu dhalinaysa hididiilo waa himilo. Haddii aad ku hanweyn tahay inaad waqti go'an ku urursatid $100,000, himilada aad tiigsanaysid ee kugu abuuraysa ama kugu kalifaysa inaad yeelatid hididiilo waa $100,000. Walaxda labaad ee dhista hididiilo waa go'aan. Bal ka waran haddii aad rabtid in aad gacanta ku dhigtid $100,000, go'aan baad u baahan tahay, soo ma ah? Haddii aad go'aansatid waqtiga aad goosatay in aad ku urursatid $100,000, hididiilo ayaa ku jirta maankaaga. Taas cagsigeeda waa haddii aadan lahayn ama aadan gaari karin go'aan aad ku tiigsanaysid himiladaada, ma lihid hididiilo. Walaxda saddexaad ee meel marisa hididiilo waa qorshe. Haddii aad ku xisaabtamaysid qofka aad la kulmaysid iyo inta saacadood ee aad la joogaysid, haddii aadba horey u og tahay hawl walba waqtiga aad bilaabaysid iyo ka aad dhammaynaysid, haddii aad og tahay waxa aad rabtid, inta aad haysatid iyo inta kaa dhiman, oo aad ka warhaysid sida ay u kala horeeyaan hawlahaaga, qorshe ayaad ku socotaa. Taas micnaheeda hididiilo ayaad leedahay. Walaxda afraad ee hirgelisa hididiilada waa dhabbe. Haddii qofka aad la socotid ama aad la kulmaysid iyo halka aad tegaysid ama meesha aad ku nagaanaysid iyo warbixinta aad dhegaysanaysid kulli ay noqdaan kuwa kaa caawinaya helidda $100,000, dhabbe ku aadan himiladaada ayaad haysaa. Taas micnaheeda waa hididiilo ayaad leedahay. Walaxda shanaad ee muujisa hididiilo waa dadaal. Haddii aad ku dadaashid ilaalinta waqtiga hurdada iyo shaqada, haddii aad u kalahdid ama aad u guuraysid helidda $100,000, haddii aad u badheedhid fadhi, socod, cadaadis, culays, daal, xanuun iyo burbur kaasoo gaaraya helidda $100,000, hididiilo ayaa ku jirta maankaaga. Walaxda lixaad ee xoojisa hididiilo waa gubaabo, dhiirigelin iyo talo. Haddii mar walba aad isweydiinaysid sababta aad ula socotid hebel iyo heblaayo, sababta aad u joogtid halka aad ku sugan tahay, sababta aad uga sheekeynaysid arrimaha qaar, waad isgubaabinaysaa. Haddii aad raadinaysid qof kula raadinaya ama aad haysatid mid kuu kicinaya shaqada iyo qof ku dhahaya ha ka caajisin, ha ka wahsan oo ha ka daahin shaqada, dhiirigelin baad haysataa. Haddii aad haysatid qof ku xusuusinaya go'aankii aad qaadatay ee ku aadanaa $100,000 oo ku dhahaya hebel baa ku caawinaya ee u tag, goobtaas ayaa lagu hayaa shaqo ee aad, hadhowbaadna ee ka cadda oo aad hebel iyo hebel, talo ayaad haysataa. Taas micnaheeda waa hididiiladaada ayaa sii xoogaysanaysa. Walaxda toddobaad ee ugu muhiimsan hididiilo waa ujeedo. Haddii sababta aad u doonaysid $30,000 ay tahay in aad ku tagtid jaamacad, ku aadid xajka, ku guursatid, ku iibsatid guri, ku bixisid deyn ama aad ku caawinaysid waalidkaaga, wuu sarreeyaa hankaaga. Taas micnaheeda ujeedo quman ku dhiirigelinaysa oo kuu fududeynaysa in aad hanatid $100,000 ayaad leedahay. Deetana hididiiladaada ayaa sii xoogaysanaysa. Walaxda 8aad ee hididiilo waa dulqaad. Haddii aad u dulqaadanaysid dhafarka, daalka, oonka, gaajada iyo damqashada badan ee kaa soo gaaraysa dadaalka iyo halganka aad ku doonaysid $30,000, hididiilo muuqata ayaa kugu abuuran. Ugu dambeyn, himilo waa waxa ugu horeeya ee dhaliya hididiilo. Si aad u kobcisid hididiiladaada oo aad u hanatid himiladaada, go'aan, qorshe, dhabbe, dadaal, gubaabo, dhiirigelin, talo, ujeedo iyo dulqaad baad u baahan tahay. Dhowr eray oo kale ayaan idinla wadaagi doonaa mar kale insha Allah. Is arag dambe oo xiiso leh. Assalaamu calaykum.